sharciga inay ku tumato inay dastuurka ku tumato waxaa ka warqabteen xildhibaano ka tirsan golaha wakiilada oo weliba ka tirsan xisbiga wadani oo xasaanad leh inay hore u xidhxidhay xilliyo kala duwan oo ugu dambeysay markii la lahaa waxaa la ansixinayaa heshiiska saldhigga maantana waxaa imarka bishii soddonkeedii la xidhay nin xildhibaan oo ka tirsan golaha deegaanka gobolka daadmareer degmada oodweyne oo magaciisa la yidhaaho cali cabdi warsame oo la xidhay 30kii January ee sanadkan maadaama uu xasaanad leeyahay horta dee lama xidhi karo sharcigu ma ogola haddii la xidhayo sharcigu wuxuu farayaa in xasaanada laga qaado marka hore kadibna la xidho haddii dembi dee lagu haysto waxaa kaloo yaab leh iyadoo daadmareer maxkamad leedahay oo gobolka togdheer maxkamad leedahay in hargeysa loo soo afduubayo hargeysa lagu xidhay waxaa kaloo ka yaab badan in maayar ku-xigeenkii gobolka daadmareer degmada oodweyne maxamed cumar cilmi iyo xildhibaan ibraahim maxamed nuur iyana xalay la soo xidhay xildhibaanadaasi xasaanada leh horta waa sharci ku jebin iyo dastuur jebin iyadoo weliba kulmiye ku doodayay sharciga inay adkeynayaan sharciga ay ku dhaqmayaan xasaanadoodiina ha loo soo celiyo xorriyadoodiina ha soo celiyo xadhigga lagu xidhay hargeysana afduub baanu aragnaa sharci ku-tumashaanu aragnaa dastuur kumashaanu aragnaa haddii dee sharciga gacmaha lagu qaato ciidina markaa shacbiga u hoggaansami mayso sharciga waxaanu soo jeedinaynaa in xorriyaddoodii loo soo celiyo arrintaana abology xukuumaddu ka bixiso waxaa la leeyahy waxay u xidhan yihiin nimankani nin ganacsada ahoo ka mida ganacsatadii maalgeliyey xisbiga kulmiye aada iyo aad ba umahadsan tihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu gudoomiye wasiirka arrimaha dibadda somaliland iyo safiirka somaliland ee imaarada wasiirku wuxuu sheegay in shirkadani ay dekada berbera qayb ka tahay maalgashigeeda safiirkana uu beeniyey wuxuu sheegay inaan dekada berbera qayb ka hayn marka labada hadal ay iswadaysan muuqfaa maxaad aragtaa waxaan arkaa horta waxaa dhameeyo inay iska tahay shirkad loo samaystay horta in wax lagu boobo laba shirkadda d b world heshiis bay kula jirtaa dee xukuumadda siday xukuumaddu tidhi haddaanu heshiiskuna been ahayn in iyadu maalka gelinayso marka uma baahna cid kaloo u dhaxaysa xukuumadda iyo shirkadda d b world waxaan u arkaa inaan loo baahnayn shirkad u dhaxaysa xukuumadda iyo d b world oo noqon karta dee shirkad dilaal inaan loo baahnayn ma qabaa waxaan is leeyahay malaa labada waxaa u dhow runta ka safiirka magacaygu waa xabsi jaamac xuseen telefishinka istanbul socda